أنا وعرنا في آل تذكر هينا منو ديسي كبدين ها وين eeg waxay yidhahdeen annaga waxaan rabnaa aad inaan dhahno gabadha ma noo deysa dadkaaga haynaaye jawaabta wiilka uu siiyey wallaahi bilaa caloosha ay horisay waa hadduu in yaqaano ila hadlay أصلا أصير راح الصومال ما كنت قرأت دفكيس نما دفكيس كنت قرأني مجرم أنا دفكيس hooyada intaasoo habeen gabadheeda ka maqan nolol iyo geeri aana ku haynin xataa iyada waa dila la yiri way dhimatay la leeyahay xataa meedkeeda aana arkin qofka markuu meedka arka xataa ku sabri karaa marka wallaahi alcadiim wax aad u murugo badan waayo waxa dhacayo dhibaatada socoto hooyo adiga maanta gabadhaa kaa baxday haddii aad ku farxaysid in wiil ama gabar kale oo masaakiin oo dembi geysanin in loo dila gabadhaada cadaaladda aad gabadhaada u raadinaysay in cadaalad dare aad ku raadisid hooyo waa qalad hooyo anigu waa ogahay inaadan raalli ka ahayn aadan ogoleyn gabadhaada darteed in qof loo cadaalad dare loogu sameeyo waxaan kaa codsanayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته guys كسر دوادا مركلة يا مقال عصب هالكان نقل سعطان ويراش فيلمز قف كذا له اللاين ولكن الريراش نحفله أنا عفمات قبطان أنت حنوصلنا وحورتيني عفمات خب إيوه بش برواقه مركو روح إذا كي ما هتعلني مرنا إذا كرا الجرينية على الجرين تقهر مرة مقال كي عن وجودن بي عن صد وبي أورنتي ضد بدن كان حين سكالي أوقاتين وقمت لقلنا عنيق مقال كاس in maxaa la yidhaahdaa aan adinkeedu ku calool xumeeyo muuqaalka muhiimadiisa inta ugu badan waxay ahayd inaan ku dhiirigeliyo ama aan runta ugu sheego dhalinyarada youtuberada cusub ee iminka soo baxayo inayna cidna isku haleynin ee iyaga nasadooda ku tashtaan taasoo aniga inta aan youtube-ka ku jiray dhibaatooyinka isoo maray ahayd inaan markii hore aan ku tashanaya inay dad garab isiinayaan oo youtubero kale Soomaaliyeed aan daba cararayay inaan ta waqti geliyo youtube-kayga inaan muuqaaladeeda hagaajiyo intaan waqti gelin lahaa يعني إيجا دبا عرّاي مركو حان ليلا ساسا مقالك أصول دوبي وانا إذا كما هالعلنية درين كينا فالعلنتينا قروح دا بدن عاد إلا سوى داكتين سيدنا حريص تلاد يقودوا مقاتين إن قاركين محالي هذا شير قريسين قاركين إلا سو حريري إن وحان هالكان عن محالي هذا كرا لقرينا يادد واوين وحجروا يقو حران ماموين ما شاء الله ورنا هانتي ديري قليو إلا يرب بدن كرا للنقضة موغال كاس وحي دباتاها إذا كسو قاري muuqaalka inta yareeda hore iska yar barankii ahayd laakiin xaqiiqda waxaan kaga hadlayaa muuqaalkaas oo dhibaatooyinka ay la kulmaan dhalinyarada cusub ee youtube-ka ku soo biirayso marka ay isku xiraan ama ay daba cararaan dhalinyarada youtuberada ay waaweyn sorry waa idinku dheereeyay muuqaalkeena u gudagalaynaa run ahaantii waxyaabo badan oo runtii caado Soomaalida ka noqotay tan iyo burburkii kadib ayaa maalmihii ugu dambeeyay haddana aad u soo batay waxaa jirta gabar Soomaaliyeed oo muddo la la'aa إكران تهديد اللي يراه عملين يا رونانتي إن هي دولة إنشاء الشيء شلي إلا حالي هذا عملين إنشاء الشيء إن قبضة قلادة قفالتي الدلين ولي يكتب نامين إن أوركا الشعب قبضة قفاشين الدلين إنسان قدمتي مركا إن هذا اللي مسؤول لها الله ونحرسته لكن وحيابها قوية أبقى بدنا عركي كدب من شاعنتي قبضة صغيرة ده kadib waxyaabihii arkay waxay tahay dhaqan Soomaalida burburkii kadib ee caadaysatay oo haddana soo laabanayo ilaa iyo bilihii ugu dambeeyay waliba saaid social media u soo galay in qof dhibaateeyo qof kale loo dhibaateeyo iyadoo qaab qabiila lagu raadinayo horta aad baa ugu xumahay dhibaatada soo gaartay ama gabadha ku dhacday walaashay Ikraan ruuxantii ma mudneen gabar yar oo cilmi leh oo dawladda u shaqeynaysay in dhibaatada maanta gaarto Allahu a'lam cidii dhibaataysay aniga hebel ma dhihi karo mana ogi dadkii la way dileen way beeniyeen mana dhihi karo dawladda dishay oo maxay yeelay ma ogi cidii afduwatay laakiin tuhum badan jiro oo dawladda laga shakisan yahay okay ma xuma dawladda waa laga shakin karaa waxa dhacday in maxay yiraahdaa maalmihii ugu dambeeyay ama maanta ilaa isha la yiraahday waxaa dhacday in dhalinyaro badan la afduubto waliba ilaa laba qof arkay inta arkay loo afduubtay hogaamiyaha hay'adda sirdoonka NISO Fahad Yaasin dartiisa maadaama gabadha NISO ay ka shaqeynayso la dilay qabiil ahaan loogu afduubtay la rabana macna dadka afduubtay ay taagan yihiin gabadheena ma dhimanin ee waa haysatiin in noo soo daayay hadii kale dadkaan aan dilayna run ahaantii arrimaha qof qabiilkiisa loogu aaneeyo Soomaalida aanada aad bay u badan tahay wayna soo laabataa
toddobaadyo ka hor bil ka hor in ahayd aan umaleynaya laba wiil oo dhalinyaro ah ayaa gaari lagala degay caabud waaq banaankeeda in ma garanayo gaari lagala degay la toogtay oo garoon ciyaar ka yimaadeen ciyaar kubada ahaayeen labada wiil ee dhalinyarada la dilay mid kamid ah walaalkiisa wuxuu ka shaqeeyaa uu caabiyaa dadka caruurta agoonta ah waa samafale ninkaasaa dadka uga shaqeynaya agoonta u gargaarayay yaa walaalkiisa la dilay qaab qabiil haddana wallahi bilaa muuqaalku soo duubay markaa arkay runtii caloosha ay hortay wuu safarsanaa I don't know wiilashana ilmo yar ahaayeen markii la weydiiyay qabiilka la raadinayay sheegteen qabiilka kale yaa dilay okay wiilashaas teeto dhibaato ma geysan cidna ma dilin waana waxaa loo dilay darteeda qabiil dagaal qabiilad haddaba tu lamid ayaa maalmahan maanta dhacday in dad la afduubtay dhalinyaro la afduubtay iyadoo loo aaneynayo oo laleeyahay waxay qaraabo yihiin ama isku qabiil yihiin ninkii anaga gabadheena naga afduubtay ama dilay okay kasoo qaad Fahad Yaasiin waa dambiile gabadhu dilay maxaa la yiraahdaa oo afduubay asiga dilay tusaale ahaan waa kasoo qaad weyn Allahu aclam inuu dilay okay yaa tahay haddii xataa cid looga aarayo in looga aaramo Fahad ba mise qof kaloo masaakiin ah oo waxba galabsanin horta intaan u godagalin su-aashaas jawaabteeda aan u godagalin muuqaalkan yar ila daawada wallahi billahi taala muuqaalkan waxa iga qiirasii waxay tahay wiilasha wiil kamida yaa wuxuu leeyahay abi idishaan ma xume Fahad horta ma yaqaana weligeena ila ma hadlay وحنا الله وحنا كلامنا ملك واحد يجي سمر أنا حاجة ما كان وايو ليش أنا حاجة ساقي نقول لما أقول يهرده ومتعلم ماذا أنا ما كان أنا okay dadkan wiilasha afduubtay waxay leeyihiin wax idin gaaraya ma lahan wax way gaareen dad ninba xuriyadiisa ka qaadeen oo qof ay xataa isgaranayeen qabiil kore ay wadaagaan yaa xuriyadiisa uga qaadeen أنا وعرنا في أهل دفكا هينا منو ديسي كبدين ها وين waxay yiraahdeen anaga waxaan rabnaa Fahad inaan dhahno gabadha manoodeysa dadkaaga haynaaye jawaabta wiilka uu siiyay wallahi dila caloosha ay horisay waa haduu in yaqaano ila hadlay taa waxay cadeynaysaa qabiilka kore ma ogeey in dhalinyaradan iyo ninka ay isgaranaynin bu أصلا أصير حسومان ما كنت أنا دفكيش نما دفكيش كنت أنا مجرم أنا دفكيش runta ku sheegaya kama danqanayo Fahad iska daayo qof walba wixii ku hooyo ku aab inuu ka damqado laga yaabaa laakiin qabiil wallahi qof uga danqanayo meeqa Soomaaliya maalin ba dhimato إنه واحد دقنا واصل الله okay waxa sheegaysaa in ay isla dhalateen aad dhex degan tahay okay wiilashana maanta afduubatay waa dishay biri maxaa ku xigo waxaa ku xiga adna kugu heeba in iyagana banaanka laga qabto la dilo okay dhibaatadaas oo dhan yaa dhigay adinka gacantiina iskugu geystay Soomaaliyeed runta markaan ka hadlo wallahi bilaa caloosha ay hortay in qof aan dambi galin qof kale loogu dhibaateeyo Fahad Yaasiin waa nin proof photo xagaarigu wata xabad ma karto muqdisho ku dhex raaxaysanaya maskiinka yar ee laga afduubay magaalada beledweyne joogana waxaa laga yaabaa in Fahad qabiilkaas kore moogiye weligiis aliis ee telefoon ku wada hadlin aan isgaranaynin waa u dhibaataysay okay waxaa rabtaa inaad cadaalad heshid cadaalad aad adoo raadinaya haddaa cadaalad dara samaysa ka waran haddii aad qofkan maanta u dishay qofkaas hebel ay isku qabiil yihiin kole aakhira markii la tago kama saarayso qof isku heblaayana laga dilay kama saarayso oo qofka diinta waxay sheegtay qofka qof dilay in la dilo qof aan laakiin waxba sameeyay dambi geysan inaad dartiis ugu aarto qof kale Soomaaliya wata meeshaan dhigtay aniga waxaan ku dhashay Muqdisho ku soo barbaaray runtii waxyaabaha ugu yaabka badnaa oo kutaalada Axmed ku arki jiray waxay tahay waxaa la dilayaa qof qabiil hebel laga dilayaa qabiilkaas wuxuu dilayaa qof kale waxaa laga yaabaa qofka qabiilkaas ka dhintay inuu ahaa qof Mooriyaan oo dagaal ku jiray oo xabad ridaayay in la dilay way baxayaan waxay u tagayaan waxay raasanayaan qabiilka qofka ka dilay qof aqoon-yahan weey dhakhtar la dilaya maxaa loo dilay dhakhtarka nin Mooriyaan oo dagaal ku jiro oo dhintay dartiisa loo dilay waa aana qabiil xataa Mooriyaan loogu dilay waxbay ahaan leed dhibaatooyinka kala jira xataa aanada qabiil oo Soomaalida ay u geysatay waxa kamid ah in dadka isku talaabi waayaan in gawaaridii iyo dadka shacabka ay baqaan in qofka xataa qabiil kale uu sheegto marka wallahi billahi taala waa arin aad looga xumaa halka waxaan kala hadlayaa qoyska ay ka dhalatay gabadha marxuumada Allah u naxariisto hadii ay dhimatay wayaan hadii kiiskeeda banaawur nool yahay alxamdulillah ilaahay soo dayaan leeyahay waxaan leeyahay qoyska arinkan adinka faragelin karo waa hooyada dhashay
iyo aabayaheeda iyo reerkeeda rasmiga adinkaa faragelin karo. maanta ku farxina hana ogolaanina gabadhiina dhibaatada loo geystay in loogu aaro ama loo bahdilo ama loo dilo qof kale Soomaaliyeed oo dhib geysanin oo ninkaasna ay isgaranaynin. qabiilka qof xun uu yeelan karaa, qabiilka dhamma wada xumo. hooyo adiga maanta gabadha ka baxday haddii aad ku farxaysid in wiil ama gabar kale oo masaakiin oo dambi geysanin in loo dilo gabadhaada, cadaaladda aad gabadhaada u raadinaysay in cadaalad dare aad ku raadisid, hooyo waa qalad. hooyo anigu waan ogahay inaadan raalli ka ahayn, aadan ogoleen gabadhaada darteed in qof loo cadaalad dare loogu sameeyo. waxaan kaa codsanayaa haddii aad garanaysid dadka dhibaatada wado ee dadka raba ee gabadhaada inay ugu aaraan dad kale oo dhibaato geysanin oo masaakiin oo magac qabiil darteeda ah, waxaan ku dhihi lahaa inaad arrinkaas ka hadashid, aad tiraahdid aniga gabadheeda wax walba lagu sameeyey cadaaladda xagga alle iyo xag sharciga oo u raadsanaya. qofkii dhibaatada iga sameeyeen waan garanayaa, laakiin maxaa la yidhahdaa inaa arrinkaa ka hesha jeclaan lahaa. waa haddii taladeeda kusoo gaarto weeyaan. ma qurux badno maanta in qof masaakiina loo dhibaateeya. tusaale adiga kusoo qaadaya, adiga daawanaya, walaalkaaga kula dhashay hadduu dhibaato geysto adiga lagu dhibaatay maxaad dareemaysaa? iska daa qof kalete. dhibaatada Soomaali meesha dhigto waxay tahay qabyaaladda. walaalayaal qabyaaladan aan ka baxno. wallaahi alcadiim waxyaabaha aniga caloolxumada igu dil waxay tahay qof masaakiin oo iska shaqaysanaya oo magaalo kala joogo yaa qof dulli dhibaato gey loo dhibaateynaya. maanta hadda dadkaas la adurto hadday dad fahad ku reere ay yihiin oo dee fahad u xariiri ay yihiin, muqdishoay joogi lahaayeen, buruuftaas dhinac ka saarnaan lahayn, hay-addaas u shaqayn lahaayeen. maxaa ka dhexeeya iyagii fahad? waxaa ka dhexeeya magaca qabiil iyaga mee dooranay, ilaaha ka dhigay. sida gabadha ama qabiilkeeda adiga ilaahay kaaga dhigay inaad isku qabiil noqotaan, ilaahay kaaga dhigay. kiiskan gabadhan kaliya maaha, maalmahan oo dhan way socotaa in dad masaakiin ah, dhalinyaro ubax yar oo soo baxayo qabiil dartiisa loo dilo. Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa wallaahi oo bilaahi oo tallaahi halaaga idinku socda gacmihiina adinkaa iskugu geysanayo. marka waxaan dhihi lahaa walaalayaal oo ilaahay ka cabsada Soomaaliyeed, wallaahi bilaahi tala weligeena horumar ma gaarayno inta aan annaga oo cadaalad qof u raadinayno qof kale cadaalad daro ku sameynayno. muuqaalkayga wallaahi ma sii wadi karo runtii. aad baan uga murugooday dhibaatada. xali waan naxay markaan arkay qoraalka lasoo dhigay gabadha layiri waa la dilay, haddana meedkeeda aan la haynin, ururkiina ay beeniyeen. wallaahi aad baan ugu naxsanaa. hooyada intaasoo habeen gabadheeda ka maqan, nolol iyo geeri aanan ku haynin, xataa iyadoo waa dila layiri way dhimatay la leeyahay, xataa meedkeeda aanan arkin. qofka markuu meedka arka xataa ku sabri karaa. marka wallaahi alcadiim wax aad u murugo badan waayo waxa dhacayo, dhibaatada socoto waa waxa anaga gacmaheena aan ku geysanay. marka astaghfirullah la yiraahdo, dib ha looga laabto Soomaaliyeed insha Allah tacaala. mar waan ka bixi doonaa dhibaatooyinka noocan oo kale. waxaan rajeynayaa wiilashaas in Ilaahay iyagoo nabad qaba reerahooda kusoo celiyo. mana qurux badno dagaal qabiil, maxaa yeelay arrinkan hadduu saan kusii socdo waxaa laga yaabaa inuu sii weynaado. muuqaalkayga intaas kusoo koobayaa, halkaasaan kaga baxaya. intaan kulmi doono muuqaalka xig waxaan idinkaga tegayaa fi amaanillah.